السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان إذن سلام يا صاحبي الكسر وذا ورك channel كرادرا ورك قضبض عن إذن سوود مني وحكم النغنية ففاينا ديرادا يا كسو بحيا هذا قال بلديو كدا عيدوليت كمقالة النصومرية بمامولك قال مذوقا حركة الشباب ولبها عيدمدا حوجة ذلك الصومالية يا كودا دجالمي دجمدا قريولي قبل كشب الله هوسه دولة فدرالك الصومالية أو بلاد باريتان كوادن دياردي كبر ورتجودها مقالة بردالة مامولك كفر قلب الصومالية دولة كينيا أو دولة الصومالية يولبها باشا عالم كعوستي إن باريتان لقوا سميو sababta diyaaradda laga leeyahay dalka Kenya ee ku soo burburtay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qaramada midoobe kala hadlay saameynta waxbarashada uu ku yeeshay caabuqa safmarka ah ee COVID-19 xukuumadda Kenya oo xayiraad ku soo rogtay xirooyin ay ku sugan yihiin qaxooti Soomaaliya waxaan markale saaxiibayaal ismaqal wanaagsan taariikhda maanta waxa ay ku beegan tahay 5 bisha shanaad ee sanadda 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka xulan iminkana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan way saxbiyaal hadii aynu ku bilaabno bal wararka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi dagaal xooggan oo ka qarxay deegaanka lagu magacaabo Qalanqale ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi uu ka dhacay oo dhinaca galbeedka kaga xiga gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka maamulka Galmudug dagaalkan ayaa waxa uu u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo ku wada sugan halkaasi kuwaas oo isku haya arrimo la xiriira dhul daaqsimeed qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxay noo sheegeen in dagaalkaasi la isku adeegsanayo hubabka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu sii xoogeysanayay muddooyinkii ugu dambeeyay ma cadda ilaa hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka oo weli ka socda deegaanadaasi waxaan iminka lagu soo waramayaa in saacado markaasi ay socdeen dagaalkaasi xaaladda ayaa ah mid aad markaasi u degan iyadoona wararka ay sheegeen in dagaalkaasi uu ku sii fudayo tuulooyin markaasi ee ka agdhow deegaanka Qalanqale ee gobolka Galgaduud ka tirsan maleeshiyaadka hadiiraya ayaa maalmihii la soo dhaafay isku horfadhiyay halkaasi iyadoo ay fashilmeen dadaalo la doonayay in lagu dhaxdhaxaadiyo dagaalkaasi ka dhacay qayb ka mid ah maamulka Galmudug gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ku soo laalaabta dagaal beeleedyo u dhaxeeya maleeshiyaad deegaanka oo ku wada sugan qayb ka mid ah gobolka Galgaduud iyadana dagaalkaasi lagu soo warmayo in khasaaro kala duwan uu jiro way saaxiibayaal isla wararka dagaalada hadii aynu eegno faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaalkan oo socday in ka badan hal saac ayaa yimid kadib markii dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigyo ciidamada militariga Soomaaliya iyo waliba kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin gudaha magaalada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi inta uu socday la isku adeegsanayay hubabka noocyadiisa kala duwan oo madaafiic ay qayb ka ahaayeen ilo deegaanka ayaa waxay noo sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa jug culus iyaga oo sheegay in madaafiicda ay adeegsanayeen ciidamada AMISOM weerarka lagu soo qaaday dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo markaasi la hadlay warbaahinta ayaa xusay inay ka hortageen weeraradaasi isla markaana khasaaraha ay gaarsiiyeen raggii soo qaaday weerarka macada inta uu leeyahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi iyo waliba wararkii ee ka horeeyayba mana jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka xarakada al-shabaab xaaladda ayaa waxaana lagu soo waramayaa in iminkan ay degan tahay waxaana goobaha lagu diriray ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya iyo waliba kuwa midowga Afrika ee AMISOM al-shabaab ayaa warada kordhisay tan markii uu bilowday bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana waradii ugu dambeeyay ay ka fulinayeen deegaanka lagu magacaabo Ceelsoynini iyo waliba Bariire oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose way saaxiibayaal markaan hadii aynu eegno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday baaritaan ku aadan diyaaradii shalay ku burburtay gudaha magaalada Bardaale ee gobolka Baay ka tirsan iyadoo natiijada baaritaanka si degdeg ah loo shaacin doono guddiga qubraha ah ee ka socda wasaaradda gaadiidka iyo waliba duulista hawada ayaa loo diray goobta ay ku burburtay diyaaradda si ay u soo ogaadaan sababta ka dambeysay hadii diyaaradda iskeeda u burburtay iyo hadii kale wasiirka gaadiidka iyo waliba duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in la ruux oo Soomaaliya iyo waliba Kenyan ay ku dhinteen shilka diyaaradeed inkastoo uu xusay in la helay meydadka 5 ruux shakiga ku aadan diyaaradda ee la soo riday ayaa aad u xoogeysanaya waxaana mas'uuliyiinta ka tirsan shirkadda diyaaradaha African Express ay ku adkaysteen in diyaaradooda markaasi la soo riday
wayahay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno dowladda Kenya ayaa Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka ka codsatay in baaritaan lagu sameeyo sababtii diyaaradda ee laga leeyahay gudaha dalka Kenya oo markaasi ka shaqeysay gargaar bani aadanimo loogu soo riday qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Diyaaradda oo dhacday Isniintii waxaa ku dhintay 6 ruux oo isugu jira muwaadiniin Soomaaliyeed iyo waliba kuwa reer Kenyana. wasaaradda gaadiidka Soomaaliya ayaa sheegtay inay markaasi bilowday baaritaano ku saabsan dhacdadaasi, waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in Kenya ay codsatay in markaasi baaritaan degdeg ah lagu sameeyo sababta ay dhulka ugu soo dhacday diyaaraddii laga lahaa qaybo ka mid ah dalka Kenya. wayahay saaxiibayaal isla wararka Kenya ayayna ku guda jirnay. Kenya waxay xayiraad ku soo rogtay xirooyin ay ku sugan yihiin qaxooti Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa bilowday qorsho ee lagu yareynayo dhaqdhaqaaqa ka bixitaanka waliba gelida laba xiro qaxooti oo ku taala gudaha dalkaasi sabab la xiriira ka hortagga caabuqa COVID-19. labada xiro oo kala xiriyaha Dadaab oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 217 qof iyo waliba xiriyada Kakuma ee waqooyiga galbeedka Kenya ayaa sidoo kale ay ku nool yihiin 1900 oo ruux. waxay dadkaasi u badan yihiin dad Soomaaliya iyadoo oo markaasi la geeyay ciidamo fara badan oo markaasi dhaqdhaqaaqay halka ka wada. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay sidii loo yareyn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo ilaa iyo hadda Kenya laga diiwaan geliyay dad gaaraya 490 kiis. Kenya ayaa horey u qaadatay tallaabooyin dhowr ah oo looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19, waxaana magaalooyinka qaar la saaray bandow ee bilaabanaya 7 habeenimo iyo waliba go'aan kale oo ay soo saareen. wayahay saaxiibayaal markan kale haddii aynu eegno wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Goodax Barre waxa uu qaramada midoobay oo kala hadlay saameynta waxbarashada ee COVID-19. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa kulan dhinaca internetka waxa uu la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswam. kulankan ayaa labada dhinac waxa ay ugu wada hadleen qorshaha wasaaradda ay ugu talagashay in ay kaga jawaabto saameynta cudurka COVID-19 ee dhanka waxbarashada. waxaan kulan la yeeshay wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswam. waxaan kala hadlay qorshaha wasaaradda ay ugu talagashay in ay kaga jawaabayso saameynta cudurka COVID-19 ee xagga waxbarashada. waxaan sidoo kale ka wada hadalnay shaqooyinka dhex yeelay hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeesheen waxbarashada dalka, waxaana la fasaxay goobaha waxbarashada ee dalka sida iskuulada iyo waliba jaamacadaha ku yaala dalkeena Soomaaliya. haddii aynu sii eegno isla wararka COVID-19 ee dalkeena Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay in la ballaarinayo xarumaha lagu karantiilayo dadka qaba caabuqa COVID-19. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa gudoomiyay shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee xakameynta waliba ka hortagga cudurka COVID-19. shirka ayaa waxaa looga hadlay ballaarinta adeega shaybaarka ee COVID-19 maadaama kiisaska coronavirus ee Soomaaliya kordheen iyo heerka diyaarinta isbitaalka Martini oo iminkan gabagabo marayso. sidoo kale guddiga ayaa waxa ay shirkooda ku go'aamiyeen sidii magaalada Beledweyne ee loogu diri lahaa injineero qiimeyn ku sameeya gudaha magaalada oo sameeya qorshe lagu baaqsan karo fatahaadda webiga Shabeelle ee ka geysanayo gudaha magaalada Beledweyne. shirka guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa waxa habeen walba ay ku yeeshaan shirkooda mareegto dhinaca internetka iyaga oo uga hadla xaaladaha dalka haba ugu badnaatay caabuqa COVID-19. wayahay saaxiibayaal wali COVID-19 wararka ku saabsan ayaa saaxiibayaal daawanaysan. markan haddii aynu eegno maamulka Puntland waxay ku dhawaaqay natiijada baaritaan lagu sameeyay dad lagu arkay astaamaha cudurka kuwaasi oo qaarkood laga helay. qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyay 22 ruux 8 kamid ah laga helay cudurka COVID-19 halka 5 markaas ay ahaayeen rag halka 3 kalena ay dumar ahaayeen. inkastoo ay shaacin deegaanada maamulka Puntland ee dadka ay ku sugnaayeen laga helay caabuqa COVID-19. sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in tirada ilaa iyo hadda cudurka coronavirus laga helay deegaanada maamulka Puntland ay gaarayaan ilaa iyo 38 ruux, hal qofna markaasi uu geeriyooday caabuqa safmarka ah ee COVID-19 iminkan dowladda Soomaaliya
ay la sii dala dhacayso. Waya saxbiyaal wararka maamulka Puntland markan hadii aynu sii eegno taliyaha ciidamada madaxtooyada maamulka Puntland General Sare Barqad Cabdullaahi Yuusuf ayaa iska casilay xilka waxa uu warqada casilaada u gudbiyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland. Iscasilaada taliyaha ayaa la ogaaday inay ka dhalatay kadib markii faragelin lagu sameeyay nidaamka shaqadiisa. Waxaa ka sii horeeyay agaasimaha madaxtooyada guud Cabdiladiif oo isna sidan oo kale faragelin ugu cawday xilka ugu tagay bilo ka hor. Gaashaanle sare Barqad Cabdullaahi ayaa inta uu joogay xilkan hirgelay hanaanka tirakoobka casriga ah ee ciidanka madaxtooyada isagoona markaasi dabariday qorshahan. Saaxiibayaal markan hadii aynu sii eegno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Awdhigle waliba iyo deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay ku soo saareen minooyin markaasi lagu aasay wadadaasi oo ay inta badan isticmaalaan gaadiidka ay la socdaan dadka shacabka ay waliba kuwa ciidamada dawladda Soomaaliya waliba kuwa AMISOM. Howlgalkaasi meeno soo saarista ah ayaa waxa si gaar ah u fuliyay ciidamo ka tirsan ururka 66 ee guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Taliyaha ururka 66 ee guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Gaashaanle Axmed Maslax Xuseen oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan ay markaasi sameeyeen ciidanka. Waxa uu sheegay taliyaha in ciidanka ay howlgalkan ay ka soo saareen miinooyin xarakada Al-Shabaab ee ku aaseen wadada kuwaasi oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka iyo waliba dadka maraya wadooyinka ee maraqeybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka Raadraaca wararka waanageynta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Xal ayaa idin soo xusinayay. Waxaad leeyahay saaxiibayaal warkan warkiisa xiga nooli kulante.